بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بابنا الكرام إلهي سبحانه وتعالى يا مهندس كلا وحلقتنا أفراد barnaamijkii fadliga soomka ama fadaa'il soom aan uga hadlaynay bishaan ramadaan ee fooda nagu soo haysa fadligeeda qofka saa'imka fadligiisa xalaqaadkii tagay walaalayaal waxaan ka soo waranay in bisha soom fadaa'isheeda qayb ka mida waxaa ka mid ah sidoo kale bishaan fadligeeda hameenka u horeeya ramadaan in la xirahayo shayaadiinta hameenka u horeeya fadliga bishaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ka mid iyo jinnida kuwooda madaxa arag nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey idaa kaana awalu leylati min shahri ramadaan hameenka u horeeya bisha ramadaan markii uu ahaado bisha ramadaan bilato sufidat shayaadiinu shayaadiinta waa la silsiladeeyaa wamaradat ljinni jinniga kuwiisa ashraarta ugu ashraarta badana ayagana waa la xirxiraa waa la silsiladeeyaa ikraaman liramadaan waaye karaamayn bisha ramadaan la karaamaynayo idan fadliga sidaas ayay leedahay sidoo kale quliqat abwaab waquliqat abwaab naar naarta abwaabkeeda intay albaab leedahayna waa xiriyo walam yuftax minhaa baab hal baabo ka mida lagama furo wafutixat abwaabu ljanna jannada abwaabteeda waa furan yihiin 8 albaaba jannadu leedahay falam yuqlaq minhaa baaban hal baabo ka mida lagama xiro wayunaadi waxa dhawaaqaya hameen kasta oo ramadaan munaadin wuxuu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbilu midka khayrka dalbahayo soo jeeso war soo jeeso wayaa baaqiya shari aqsir midka sharta dalbahayo gaabso waqti shar maahan waqti xumaata maahan waqti waxaa la sameeyo xumaatna la sameeyo maahan gaabso waa waqti khayr marka nasiibkiisa qof kasta iyo wixii qadarkiisa uu ka qaato weeye walilaahi cutaqaa'u min annaar buu leeyahay nabi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay cutaqo naarta ku xoreeyo wadaalika kulla leylatin way hameen kasta ilaahay cutaqo uu leeyahay dadku naar uu ku xoreeyo bisha ramadaan imaamu bayhaqi wuxuu wariyay inna lilaahi caza wajal ilaahay waxuu ahaaday fii kulli leylatin hameen kasta oo min ramadaana ka mida 600,000 catiiqi min annaar 600,000 catiiq 600 oo kun oo catiiqoo naar laga xoreeyey buu leeyahay hameen kasta faidaa markuu ahaado aakhiru leylatin actaqa allahu ilaahay wuu xoreeyaa bicadadi man madaa cadadkii soo tegoo kale intii bishu hameenkii intii hameen la soo maro oo kale haddii 29 hameen gudubtay ama 28 gudubtay intaas oo kale hameenka sana 300 oo 600 oo kun la xoreynay riwaayo kale waxaan ku soo maray 60,000 laakiin riwaayadana waxa sheegtay cadad aad u fara badan ilaahay hameenka u dambeeyana intii la soo maro oo kale u xoreynay dhamaantood waa cadad aad u fara badan ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu daro ilaahay naartiisa naga xoreey kuwa ilaahay cutaqadiisa ilaahay nagu daro subxaanahu wa tacaala daba bishaan fadligeedu wax la soo koobi kara ma qof kastoo marka sooma asagoo yaqiinsan fardiyada soomka faradkiisa ixtisaab oo ilaahay ajar ka raadsanaya wax kale qasad kale ku jirin ilaahay dunuubtiisa uu dhaafayaa waa la dhaafayaa saqaa'irteeda jamhuurtu si ayay qabaan dunuubtaas la dhaafay waa saqaa'irta xadiiska daahirkiisana waxa laga fahmaya uu sheegaya kulligeed in la dhaafayo imaamu nawawi wuxuu leeyahay calayhi raxmatullaahi imaamu nawawi ilaahay fadligiisa waa waasic waxa la rajaynayaa uu leeyahay qofkii aan dunuubta saqaa'irtu maray ka dhamaato waxaa la rajaynayaa ilaahay inuu kabaa'irtan ilaahay uu ka hoobiyo sidoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in waxyaalaha janno lagu galo soonka uu ka mid yahay oo nin ayaa weydiiyey xadiis jaabir laga wariyey radiallahu canhu ee imaamu muslim uu warinayo uu soo saaray sidoo kale axmedna imaamu axmedna u warishay ana rajula nin baa wuxuu leeyahay wuxuu yidhi sa'ala nabiya sala allahu calay waslm nabiga weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ara'ayta ka waran idaa sallaytu salawaati almaktuubaat salaadaha shanta haddaan soomo oo haddaan tukado salaadaha shanta oo sumtu ramadaana bisha ramadaana aan soomo oo wa axlaltu lxalaala xalaashana aan xalilo macnaheedu waxa weeye anoo ictiqaadsan wixii xalaalah aan sameeyo wixii shareecadu ay tiri waa xalaal waxaan waxaramtu lxaraama xaraamna aan ka fogaado wixii ictiqaadkii wixaan anoo ictiqaadsan inay xaaraam yihiin oo shareecadu ay sheegtay inay xaaraam yihiin aan ka fogaado xarimo walam ajid calaa dalika shayan waxna aana ku siyaadin adkhulu ljannata janno ma gelaya qaala nabigu wuxuu yidhi nacam haa janno waa gelaysaa janno weeye qofka ahlu janno wey qaala wuxuu ninkii wallaahi laa asiidu calaa dalika shaya
waxba inaana ku ziyaadinayn arintaas shay sida uu yahan u qaadanaya idan riwaayo kale waxay tilmaamtay bal qofkii sidaas sameeyay inuu sidiiqiinta kamid yahay shuhadada kamid yahay darajada sidiiqiyada la yiraahdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sayyidatina Maryam uu yiri wa ummuhu sidiiqa hooyadiisna waxay ahayd sidiiqa darajada sidiiqiyada la yiraahdo inuu gaarahayaba oo riwaayo waxa ku sugnaa ibn Hibban iyo Bazaari iyo ibn Khuzaymiyo ay wariyeen inuu nin u yimid nabiga sallallahu wa salaamu alayhi markaasuu yiri ara'ayta kawaran in shaytu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah صليت صلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا يا كم إذا هي بير هدي أن توحيدك غيره شهادة عن لا إمام توحيدك أدونا رسولك إلهي تاي هدي أن غيره وصليت صلوات الخمس أنا أن تكذو زكاة أن بعشر رمضان أن صوم أن قوم يستقل جهله فممن أنا يا كم إذا قال وحيري من الصديقين والشهداء يا كم ذاتك الصديقين تا iyo shuhadada ayaa kamid tahay idan bishaan fadligeeda walaalayaal uu fara badan yahay bal waxa kamid ah soomka fadligiisa inuu u shafiicayo maalinta qiyaam riwaayo ibn Umar hadiis uu warinayo waxa ku sugnaa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa nabiga ka warshay sallallahu alayhi wa sallam inuu yiri nabigu as-siyam soomka iyo wal qur'aan yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah soomka iyo qur'aankuba waxay u shafiicaan maalinta qiyaame وأيو إرجودان إرجويهن قفكي يعني ويشفيعان أظنك أيو شفيعان يقول الصيام عليه رب يا رب إلهيو منعت عن كريبي الطعام عن كريبي والشراب عن كريبي والشهوات عن كريبي موسى وصومنا أنو يصومنا وصومك يعني أنت معوني تشرين شراب مع بيتشرين وحشة هذا مسلمين تنا سوى نفتي شهوة وبانتاي حاسس كيسي وحاونا وكصومنا فشفعني فيه يرجع قبل ما ارجع كاغا هيمانت ويقول القرآن رب منعت النوم بالليل هرددي ما كرب همينك فشفعني فيه إله ربي يجا شفيع أكبر ارجع ما أنت كاغا موسى سيحان شرين ضدك خيارتها قرآن كهمينك آخر يعني كسو جيدان قرآن كهمينك أي لم يراجعودان قرآن كهمينك أي صفة عن وقت الدبران قرآن كنسيب كذا كغاتان قف كسان قيام الليل ولا جرب يا قرآن كيس إنه ليه ماد والبشر رمضان إنه عاد ولا من لابه أما شو يسمين ترى قف كوس ولا من لابه مؤمن كشرف كيس وقيام الليل كويكين النبي عليه الصلاة والسلام ده صالحين تدأ بيقولون وحكم ده علينا قيام الليل ليه قف كإنه بصالحين هاي وحكم ده آداب ضد صالحين تلو تريو دأ بيقول آداب تد وحكم ده إن يهين قيام الليل أي ليه نسيب كذا كقاتم فيشفعان فيه مركبين النبي ويشفع عن قرآن كيو iyo soomkuba way u shafaacayaan qofkii sameyn jiray ee soo soomi jiray adduunka intuu joogay quraankiisa soo akhrin jiray xadiiskaas imaam Ahmed ayaa soo saaray oo warinaya daba walaalayaa soomka fadligiisu مثل male xadiiska saxaabiga li jiray abi umama al-bahili radiyallahu anhu wuxuu yiri qultu waxaan ya rasuulallah ilaahi rasuulkiisiyo murni bi amri yanfa'uni allah bih waxay amartaa amar ilaahi uu anfacayo أمر إلهي سبحانه وتعالى وأنفع يا أمر قال نبي عليك بالصيام دش هذا وحا هذا الصوم فإنه لا مثل له مثل مله وحكو أجر مجران يعني بدي صيام كوي وح مثلا مله جسك ما ورث عافية بوية نفته إلا تبيه أصقع كوفي عن نبي عليه الصلاة والسلام مركون على يرد الله لا يحجري ورجور سدا قفك السوء أوذا هجور سدا maxaa yeelay farjigana asaga u wanaagsan oo dhowrid badan indhahana asaga u laabid badan qofkii aan guursanaan awoodina ha soomo maxaa yeelay dhufaan buu u yahay shahwadu ka jabinaya idan sidoo kale soomku waxa kamid ah fawaa'idiisa inuu jasadka uu caafimaad u yahay sidoo kale naftana uu jabinayo oo naftu ay jabayso ajarkiisuna uu fara badan yahay qalbigana uu nadiif u yahay oo qalbiga nadiifinayo iyo sidoo kale uu kamid yahay waxa ilaahay lagu dhawaado subhanahu wa ta'ala waxyaalaha uu wanaagsan imaam Dabarani iyo Bayhaqi waxay wariyeen acmaash amal kala sameey ilaahay agtiisa 7 shay inuu yahay laba amal waxbay waajibaan muujibaani way laba amalna ayagoo kale oo ajar ay leeyihiin amalna hal amal daalatimaadina 10 ajar ayaa leedahay 10 jibaar hal amal daa sameeysinna 700 oo jibaar uu ku tagaya laba hal amalna oo kalena thawaabkiisa waxaan ilaahay ahayn ma oga إلهي بس سبحانه وتعالى لبدا waxa waajibisa
qofka soo ilaahay la kulma asagoo mukhlis ah aan waxba ilaahay la wadaajinayn janno ayaa qofka u waajibtay amalka janno ku waajibay qofkii ilaahay la kulma asagoo wax la wadaajinayo mushrigana naar ayuu u waajibay amalkaas qofkii sayi'a sameeyay kaligeed ayaa loo qorayaa mathalkeedo kale qofkii xasanaha miyo aan sameeyna hal amala loo qorayaa wahmis maada sameey sidoo kale qofkii xasanaad la yimaadana 10 jibaar weeye xasanatu b10 amthaalha waana soo marnay xadiisteeda 10 jibaar weeye ayana sida weeye qofkii jidka ilaahay wax ku bixashana hal dirham ama hal dinaara 700 oo ajar ayaa loo laalaabay 700 oo jeer soomka miyaa doonaysaa asaga thawaabkiisa cidaan ilaahay ma og caamilka sameynaya thawaabka uu leeyahay ilaahay bas baa og subhanahu wa ta'ala idan halkaas uu darajadaas u jooga acmaasha markii leey toddobaas weey soomku darajadaas ayuu ka galay oo kale nabigu tilmaamay salawaatullaahi wa salaamu alayhi nin haduu sooma maalin tadawuca ma huwa waajib hatta yani sunnah thumma la siya ardada muggeed dhulka muggiis oo dahaba ajarkiisa ma oofin karo maalinta xisaabka ka sokay ma oofin karo ardada aragtay oo waxa aragtay inta aragtay leeg dhulka aragtay oo waxa aragtay ku dhex jiraan hal maalin oo soom sunnah soomtid fadligiisa maalintaas ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala qofka uu ku leeyahay ma buuxin karto dhulkaas baa leeyahay riwaaya ayaa saatimaad waxa kamid ah fadliga soomka ilaahay uu ka fadliyo qofka ducadiisu mustajaaba tahay oo nabiga kaleey salaatu wa salaam wuxuu tilmaamay la turaddu lam'ishu da'watu thalathatun la turaddu da'watuhum saddex dacwadooda iyo ducadooda lama celiyo as-saa'im xiina yufdir qofka saa'imka markuu afurayo qofka saa'imka xaalada uu afurayo qofkaasi lama celiyo ducadiisa idan naxnu baahi weyn ayaa u qabnaa ducada wayna ducada badino markii la afurayo ee qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta nuu soo soomana afurayo inaan ducada badino nafteena u ducayno ahalkeena u ducayno waalidiinteena u ducayno muslimiinta u ducayno kurbada iyo faraj ilaahay kurbada inuu qaado faraj ilaahay umada ugu bedelo sidoo kale wal imaam al aadil imaamka aadilka ee cadaalad sameeyana asna madaxweynaha caadilkaana ducadiisa lama radiyo dacwada qofka la dulmiyay ee dulmiga loo geystay dacwadiisana asna lama radiyo sidoo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala daruuraha korkooda kor yeelahay oo wuxuu u furayaa samada abwaabteeda markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay hadana wa izzati wa jalali la ansuran walaw ba'da hin jalaaladeydan ku dhaartay waan ku gargaarayaa gadaal baa noqotay idan saddexdaas waxay kamid tahay waxa kamid ah aan ducada la rido qofka saa'imka markuu afurayo sidoo kale wuxuu nabigu tilmaamay salawaatullaahi wa salaamu alayhi likulli shay'in sidii ibn maajah riwaayo uu wariyo ku sugnay zakaa wa zakatu al-jasadi as-sawm wa sawm wa siyam nisfu sabr shay kasta saku leeyahay jirka sakadiisu waa soomka weey soomkuna waa sabarka barkiis sabarkuna aniga hore u soo sheegnayo wa sabru thawabuhu al-janna sabarka thawaabkiisu janna weey waa janno thawaabkiisu amal kalam amal malin karam male idan nabigu kaleey salaatu wa salaam markuu ka waramayay soomka fadligiisa wuxuu tilmaamay nabigu ma jiro adoom hal maalin la sameeyo sooma illa ilaahay naarta wuxuu ka fageeyaa wajigiisa uu naarta ka fageeyaa 70 dayrood meel loo socdo 70 sano in loo socdo abi saciid al-khudri radiyallahu anhu xadiis laga warshay qaala wuxuu yiri saxaabigaas qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay ayaa yiri ma min abdin adoon ma jiro yasuumu sooma yawman maalin fi sabiilillah jidka ilaahay ku sooma illa ba'ada allah ilaahay wuxuu ka fageeyaa wajigiisa aan naar 70 kharifan 70 dayrood in loo socdo ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ka fageeyay hal maalin fakayfa biman saama marka maxaa malayna qofka soomay 30 bisha ramadaan 30keeda bisha ramadaan oo dhan sanawaadyo badan soomay intaas oo soon ilaahay subhanahu wa ta'ala umri dheer siiyay ee ilaahay soo marsiiyay nabi markuu ka hadlayo salawaatullaahi wa salaamu alayhi umriga ka u fadli buu yiri dadka kan u wanaagsan khayrun naasi man daala umru wa hasuna amalu bi nabi alayhi salaatu wasalaam dadka waxa u khayr badan qof umri dheer ilaahay siiyay amalkiisuna wanaagsanaaday qof markii ilaahay umri inta siiyay sanad kasta soon ku iimaanayo gudanaysi ilaahay talagalay u gudanayo maxaa u malaynay hadii la yiraahdo hal maalina oo jidka ilaahay u soomtid ba ilaahay subhanahu wa ta'ala 70 dayrood min loo socdo oo ilaahay wajiga naarta ka dheereynaya kuwa ilaahay subhanahu wa ta'ala wujuudo naarta ka dheeray ilaahay naga dhigo daba walaalayaal waqtiga ayaa gabagaba waxaan la ka rabaa u diyaar garow bisha inaa u diyaar garoon waxaan ugu diyaar garoomayna
sidii nebigu calayhi salaatu ugu diyaar garoobi jiray uu nebigu wuxuu ka niyeysan jiraa ka niyeysano inaan ku dadaalno inaan habeenka u horeeya ramadaanadana ilaahay ay nagu dhacdo anigi soo sheegno in shan waxyaalo ummadda ilaahay ku fadilo waxaa ka mid ah ilaahay habeenka u horeeya inuu ummadiisa fiirinayo man nadara allahu ilayhi fiiha lam yucadibu abada habeenkaas axadka ilaahay u fiiriya ma cadaabo waa inaan habeenkaas aan ku dadaalno wey sidaan kusoo xasilinahay salaadaha jamca ku tukano cishaha maqribka cishaha subxiga qiyaamuleyl taraawiix quraan akhris dikri salaa cala nabiy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidoo kale bisha awalkeedu waa raxma dhexdeedu waa makfiro aakhirkeedu cudqu min annaar waa inaan intaba ku dadaalnaa inaan koobno makfirada inaan haleelno raxmadda inaan haleelno ilaahay noo naxariisto cudqiga inaan ilaahay naartiisa naga xoreeyo intaba inaan ku dadaalno wey sidoo kale inaan ugu dadaalno almutaabaca linabiyi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wax kastoo nebigu sameeyey ilaan dayashaan ugu suga nebige inaan ku dadaalno ayadana sidoo kale alna ka rabo dayashana laka helo nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan niyo wanaagsan la nimaano ahlucilmigu waxa la yidhaha sida waman fataxa calaa nafsihi baaba niyatin saalixa baaba niyati saalixa qofkii u fura yani naftiisa niyo saalixa fataxa allaahu lahu 70 baaban min abwaabi tawfiiq hal waxyaalo niyo wanaagsan oo naftaada u furtid ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku firay 70 baab oo abwaabta tawfiiqda ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala aan uu ku furaya marka inaan niyadeena waasicino wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka niyeystay bisha ka niyeysano wixii ahlu cilmiga ka niyeysteen ka niyeysano saxaabada iyo khulafaa raashidiin waxay ka niyeysteen ka niyeysano in farxad aan ku soo dhaweyno iyo bishaaraysi iyo cishq aan cishqaysanahay bisha ilaahay subxaanahu watacaala inuu na gaarsiiyo waxaana la ka rabaa iyana sidaas oo kale waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala uu ku fadilay bisha iyo xikamta waxaa ka mid ah sabr inay tahay madrasatu lisabr sabarka madraso sabar inay tahay madraso sabar inay tahay oo aan sabarno wahuwa shahru sabri wa sabru thawaabuhu aljanna waa kiini wanaas ilaahay inuu leeyahay fasaabiruuna ajrahum bigayri xisaab sidoo kale ashukr in ashukr la timaadid ilaahay hadduu ku gaarsiiyo ummad baa maalin kasta dhimanaysa ummad kaa caafimaad badan baa yani ama kaa da'yar ama kaa caafimaad badan baa tagayo ilaahay ajasho intaa ka dhigay adiga ilaahay hadduu ku gaarsiiyo ilaahayna gaarsiiyo subxaanahu watacaala waa in shukriga badinaa sidoo kale akhlaaq tasgiyatul akhlaaq wey meesha qof akhlaaqdiisa uu ku wanaajinayo wey inuu qofku markuu sooman yahay waanaga soo maray laa yarfud yuusan yani xumaan samayn yuusan qaylin waxaas marka qof baa la yiri marka qofka akhlaaqdiisa dhismaysa wey nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlay fadliga akhlaaqda maa min shayin athqal waa kiili fi miisaan alcabd mu'min yowma alqiyaamati min khuluqin xasan ma jiro shay uga culays badan miisaanka oo muuminka loo saaro dabeecad wanaag wa in allaha yubqidu alfaaxisha ilaahay wuu caroodaa qofka yani faaxisha xumaanta sameeya iyo qofka sidoo kale riwaayo kale ay ku darto qofka carab lutada leh waxyaalaha ilaahay waa u caroodaa marka waa inuu taskiyatul baa ka mida akhlaaqdu inay wanaagsan sidoo kale shaydaanka meesha looga dagaali lahaa wey shaydaanku cadow ayuu noo yeesay ilaahay noo sheegay ilaahayna cadow ka yeeshu yidhi marka waa in waa uu naga xiran yahay kuwa weynaha maradadii waa la xiray in qofku uu ka faa'iideysto oo nasiibkeena aan ka qaadano wey sidoo kale waxyaalaha waxaa ka mid a bishaan ilaahay subxaanahu watacaala soomka xigmatiisa ka mida iyo fawaa'idiisa inuu caafimaad u yahay jasadka iyo badanka caafimaad u yahay xanuuno badan ilaahay uu kaa caafinayo bal riwaayo waxay ku timi imaamu axmed iyo dabaraani ay weriyeen abu nacaymi suumuu tasixuu nebigu inuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh war sooma waa caafimaadaysiine sooma waad caafimaadaysiine dana daba walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa tawfiiq ilaahay inuu na waafajiyo bisha kuwa ilaahay nasiibkooda ka qaato ilaahay naga dhigo cutaqadiisa ilaahay inuu nagu daro muuminiinta ilaahay faraj uu siiyo ilaahay ahlkeena nafteeda ahlkeena muuminiinta ilaahay cadaabka uu ka xoreeyo ilaahay subxaanahu watacaala faraj khayr qaba ilaahay noo furo bilaadina amni ilaahay na siiyo istiqraar ilaahay na siiyo beledkan Kenya ku nool amni iyo istiqraar ilaahay ka dhigo midka Soomaaliya amni iyo istiqraar ilaahay siiyo bilaada muslimiinta meel kastoo ay joogaan meesha qalaasi dhib ku jira ilaahay subxaanahu watacaala ka qaado muslimiintu xumaan waaxida waay iyo muuminiintu waa jasad waaxida haddii xumaan ka xanuunsato inta kale ma seexan karto anoo dhan jasadkaas ayaan isku nahay nabiga calayhi salaam soo tilmaamay marka waxaan ka rabaa inaan ka murugno arrimaha muslimiinta meelaha dhibku ka jiro meelaha amni la'aantu ka jirto meelaha khalaasuhu ka jiro inaan u wada ducayno
ducada qofka muuminka muslimka u ducaysid oo qayb ka soo ka maqan mustajaabo way ducaa qayb waa mustajaabul malik baa kulli aan inta kala ku ahaatay ilaahay faraj kaamil degdeg ilaahay nasiyo masaajida iyo waxyaalaha xina ilaahay noo furo ilaahay subhanahu wa ta'ala cudurkan coroonaha iyo waxyaalaha lamidka ilaahay subhanahu muslimiinta ka qaado umada ilaahay ka qaado caafimaadkeeda umada ilaahay u soo celsho walwal halaca iyo waxyaalaha umada kurbada ku haya ilaahay ka qaado subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga kaafiyo ilaahayna kaafiyo asaga ilaahay subhanahu wa ta'ala leeysa miduna kaafisha kaafiyo asaga ilaahayna kaafiyo inta ayaa ku soo gaabina xalaqaadkeena wa aakhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin